maamul degmo oo dambe oon idiin soo magacaabayna male kuwii ugu dambeeyey waay markaan magacaabis waa naga soo dhammaatay iimaansada ninka fidnada wada oo fidna walaha gacanta laga qabtaa la yiraahdo naga dhaxbax fidna mar waxaan soo magacawnay 5 gudoomiye maxaa loo yeelay inta adinka 5 gudoomiye idiin soo magacaabay degmooyinka qaarkood hal gudoomiye jooga oo dhamaystay oo ku soo noqday 5 gudoomiye markii la soo magacaabayo waa gudoomiyaalka ma xumayn sideedaba waxaa la yiraahaa dad xun ma jiro hoggaanka xun askar xun ma jirto taliyahooda muddadan wax aanan diin soor dhaqan u ahayn yaa ku batay oo ku soo noqday magaciina in meel xun iyo si xun loo sheego diin soor xaq uma laha waayahay waa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isla markaana la hadlayo hadalkiisa ujeedadiisana ay tahay beelihii ka dagaalamay ee degmada Diisoor ee gobolka Baay ee muddooyinkii u dambeeyay halkaas ee beelaha kala ah Geeridle iyo si la mid ah Dabare beelaha walaalaha ee degmadaasi ayaa isku farasaaray ee degmada muddooyinkii ugu dambeysay iyagoo si la mid ah midba midka kale ee reerahaasi ay sheeganayeen cidda iska leh ee degmada iyo si la mid ah maamulka cidda ay ka talinayso madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa gaaray ugu dambeyntii degmada Diisoor ee gobolka Baay oo isku farasaareen beelaha walaalaha ah isla markaana halkaasi ay ku dagaalameen muddooyinkii ugu dambeeyay iyagoo midba midka kale ee reerahaasi ay sheeganayeen cidda iska leh maamulka iyo si la mid ah cidda awoodda u leh xaqa inay maamusho iyo noolaashiyaha ee degmadaasi iyo bulshada ka dhaqankeeda iyo si la mid ah cidda ay u badan tahayba meelahan walaalaha halkaasi ku dagaalmay ayaa si aad isku farasaaray iyagoona isku dileen dad boqoleeyo kor u dhaafaya taasoo ay noqotay khasaarihii ugu tirada badneed ee laba reer oo walaalaha isku dagaalaan isla markaana iska laayaan ee dadka iyaga dhexdooda dowladda koonfur galbeed ayaa isku dayday inay farigelin xoogan ay ku sameyso dhacdada foosh xumiya halkaasi ay ka dhacday laakiin taa beddelkeeda waxay caqabado kala kulantay dadyow kale oo ka maqnaa ee Diisoor isla markaana sheeganayay beelaha halkaasi dega iyagoo si la mid ah sii horinayay colaadda ee degmadaasi ee ka jirta halkaasi oo la sheegay in xitaa uu geli waayay gaari xamuul oo raashin wada si uu deegaankaasi u gaarsiiyo dadkooda waxaa la sheegay in dhibaatooyinkii soo gaaray ee degmada Diisoor ay sababtay in labada beelood ee walaalaha ay kala xirtaan ee magaalada qaybna ay xirtaan hal beel qaybta kalena ay xirtaan beesha kale oo iyagoo beesha ay ka soo horjeedo kuwaasi ugu dambeyntii sababtay khasaaro nafeed caruur habeen iyo si la mid ah dad waayeelaha halkaasi ay ku nafwaayeen dagaaladii u dhaxeeyay ee labada beelood ee walaalaha Dabaraha iyo si la mid ah Geeridlaha dowladda koonfur galbeed oo dadaalo badan sameysay ayaa ku guuleysatay ugu dambeyntii inay xaliso labadii beelood ee walaalaha ee halkaasi isku farasaaray isla markaana ay dhexdhigtay heshiis nabadeed kaasoo la sheegay in madaxweyne Laftagareen uu isugu wacay odayaasha labada dhinac isla markaana ku qaabilay madaxtooyada koonfur galbeed ee ku tiila caasimadda dowlad kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee Baydhabo halkaasoo la sheegay inuu kula shiray odayaasha labada beelood isla markaana u bandhigay in si degdeg ah ay u gaaraan go'aan isla markaana ay ka qaadaan deegaanka Diisoor go'doonka imika ay saaran tahay si la mid ahna ay u sheegaan bulshada in jawiga uu degan yahay labada beelood walaalahan heshiis la dhex dhigo xabad joojin rasmi ahna halkaasi laga sameeyo iyo si la mid ah horumarka bulshada in laga shaqeeyo iyo qorshooyinka degmadana la sii daadajiyo si ay u noqoto mid horsocda sida madaxweynaha hadalkiisa aad ka maqasheenba degmada Diisoor waxaa loo magacaabay in ka badan 5 gudoomiye kuwaasoo si la mid ah dadka shacabka ay diidinayeen hadba marba midka la magacaabo la sheegay inay ka soo horjeesanayeen beel ka mid ah maadaama gudoomiyaha uu ka soo jeedo mid ka mid ah beelaha halkaasi dega ayaa la sheegay in beesha kalena ay u cuntumi weysay isla markaana iyagu ay sheeganayeen cidda iska leh ee maamulka
taasoo sababtay isqabsi xoogan ee dhanka maamulka inuu ka dhasho. Si la mid ah, madaxweynaha ayaa isku dayay inuu xal waara u keeno dagaal beeleedyada halkaasi ka taagan, islamarkaana degmada Dinsoor ee gobolka Baay ay ku bixiyeen maamulka Koonfur Galbeed sidii loo xasilin lahaa ee dadka walaalaha ay halkaasi isku farasaaray. Intaa guddoomiye oo loo magacaabay halkaas, hal guddoomiye oo xalin waayey xitaa kuma jiro shanta guddoomiye ee Laftagareen uu sheegay in halkaas deegaankaasi u xil saaray inay maamulaan shacabkaasi islamarkaana isku keenaan. Waxay ku guuleysan waayeen in dadkaasi la isku keeno, oo sababtana ay ahayd in dadkiin aanu ku qanacsaneen in qofka hadba la keeno halkaasi, reerba reerka kale isagu uu doonayo in qofka la keeno halkaasi uu yahay qofkiisa, islamarkaana xalka keliya ay tahayna inay iyaga ay ku qancaan, ay tahay in qof iyaga ka socdo in halkaasi uu maamulo.